intii wanaagsan mar kale iyo ku keen wad xafsa aan ku soo dhawaada meel kasta oo naga daawanaysan maanta waxaan joogaa Minneapolis magaaladeeda hore maanta waxaan idin tusayaa insha Allah siyaabo gurigaaga oo nadiifsan karto adoon guriga sameeynin oo taxi ka dhigin ilmihi ma sha Allah in family waaweyn aan ilmaan leenahay ilmaha wadankan hadeertaan waxa maaragtay aad loogu arkaa in asma iyo waxyaabo la mid ah marka insha Allah this is sida aniga aan guriga u nadiifsado ina ka faa'iideysto waxyaabo fudud oo guriga ku haysataan waaye waa isku dardaraynaa ma sha Allah aan ku dhahay guriga sparkle clean soo fiirso sida aan isugu daray waxaan isku darsanaynaa maanta liintaan oo laba xabba ah waa jarjartay kaasa laba xabbo liin laba koob oo biyo ah biyaha caadiga tubada insha Allah iyo half a cup oo vinegar ah vinegarka waxyaabo badan aniga u isticmaalaa saa ula socotaanba insha Allah haddii marka uu urkiisa iyo waxaas uu ku dhibaayo aniga urkiisa ma jecel laakiin si yar aan u habeeyaa idin tusaaya insha Allah waxaa ku darsanaysaa essential oil ka bidda ajcashaa markaas carfayso insha Allah alaab amazing ka soo baxaysa meeshaas oo meel kasta aad ku nadiifsan karto haday ahaan lahayd jikada iyo haday ahaan lahayd guriga dhan marka qolofta ku shiid qolofta aad caraf badan ay leedahay aad u fiican tahay alaabtan waxaan u isticmaalaa meelo badan guriga kamid ah caaga xataa hilibka lagu jarjarto miiska yar oo alwaax yar oo hilibka lagu jarjarto waa ku dhaqaa meelo badan masquul hadhiin jikaha hadhiin meel kasta ku nadiifsan kartaa ilmaha markii aan la sameeynin xataa hadaa waxyaabahan guriyaha lagu nadiifiyo ka maarmi weyso waxa soo gadataa mid calaamada cagaarka ay ku sawiran tahay oo greenka ah oo maaragtay environmentiga u fiican aad ay muhiim u tahay because maxaa yeelay sunta ku yar waxa kale ta sun waa insha Allah ka waantoodo markii ashiida kadib insha Allah waxa sameeynaysaa maxaa yeelay gufurkii iyo marabtii inuu kuga haro samaha qoloftii aan ku shiida ma fiiqin marka waxa sameeynaysaa waa miiraysaa saasa u miiraysaa marka meertana alaabtaas kaaga soo baxaysa meeshaas aad ku ugu nadiifinaysa bakteeriyada guriga dilayso bahalada yaryar wax lagu jarjarto hilibka iyo chickenka iyo waa ku dhaqan kartaa marka waxa ku daraysaa essential oil kaas mid adiga markaas aad jeceshahay barfuun ama leedahay oo aad u fiican tahay iyada laftirkeeda bakteeriyada dishaa taas waxa ku daraysaa adiga 4 dhibcood amal caagan hadii aad soo gadato marka ku dartana insha Allah jaa hadda midaan sameeyay already ah halkaas aan ku shubtay midaan kaleetana waa kana magic of TV hore u sameeyay marka halkaas marka ku shubato ma sha Allah aan ku leeyahay uma baahnid maaragtay ilmaha ina sameeyso ama reerkoo dhanba aniga waxyaabaha waxay u kalifay waxyaabaha guriga lagu nadiifiyo allergiga aan ku ahay marka waxa danta igu qasabtay inaan la imaado si cusub oo maaragtay guriga aan nadiifin karo marka saad u buufinaysaa insha Allah kaas meel kasta ku tirtiri kartaa haday miraayad ahaan lahayd haday jikada ahaan lahayd guriga dhan marka asxaabta sharafta leh insha Allah alaabtan waxa haysan kartaan ilaa iyo bil dabcan sidoo reerku u badan yahay ku xiran tahay laakiin alaabtan alaaban ka faa'iido waaye ilmaha sunta laga kala yareeyo waxyaabaha la buufinayo caafimaadka uma fiicna saa la socotaan ay hubdo inaan ka hesheen insha Allah fiirsada wixii maaragtay taliye tusaale ah hoos ku qora subscribe gareeyo oo mahadsantihiin 5 minutes أنا هذا وفر حسنا هاي ولا شيء حبسة أو لغة يقان يوتيوب cooking with حبسة actually هذا وفر حسنا هاي هذانا هندكر من صورة مينيابوليس إن نوعماتي إن تستوى حيابه فايدوين بدن كله هنسيدا سواء لو كريو سيدا عبتنا دلو شيدو سيدا قريه لو كلين كريو مركا وحندي لها هاي عبتين كان أوجدين هلاقي فايدة ستو هير من صورة ضد نورا مني لك صدق بقى حربنا أد النور نو سيدا هير كنا نقول مركا حبسة بدن بينوك فايدين إنسان مركا هذا وفر حسنا هاي هم وجانين وحبسة cooking يوتيوب thank you بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وفوز عبد الله حسن waxaan joogaa Minneapolis nasiib wanaag maanta waxaan magaalada Minneapolis nagu soo booqday walaashan Xafsa with cooking wax badan aan Facebook Xafsa ka daawan jiray laakiin maanta Janiska waxaan u helay live Xafsana nooga imaatay Minneapolis qaas ahaan inaan maanta joogo meel ay ku sameynayso waxyaalaha cleaniska ah for example aniga foos ahaan wiil yaraan haysta asmo iga qabaa waxyaalaha guriga lagu clean gareeyo aad ii dhibaayeen laakiin maanta faa'iido badan aan helay wixii cleaniska ah ay tustay I will try marka hadda guriga ku laabtay inaan sameeyo insha Allah cabitaanada oo kale runtii qaaraan hadda ay sameysay waan test gareeyay aad aan uga helay waa mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamuud Mascade waxaan aad ugu faraxsanahay inaan magaalada Minneapolis kula kulmo Xafsa Xuseen Xasan oo ah curiyaha barnaamijka caanka ee la magac baxay cooking with Xafsa
run ahaantii barnaamij loo baahnaa weeye oo bulshada Soomaaliyeed ay wax fara badan ee ka faa'iideyso dabcan anigu ma ihi dadka ku fiican cunto karinta laakiin hadda waxaan haystaa fursad aan markii aan baahdo ama aan doonan cunto kariyo si fudud aniguna xataa hore u sii baran inta daarto fiidiyowga Xafso aan markaa waxaan rabo aan karsan karo markii aan iskaabulada ahaan jiray fursadaasi ma aanay jirin nasiib darro laakiin hadda dhalinyarada iskaabulada ah oo aan jidka u soo banaynay waxaan filayaa inay ka faa'iideysan doonaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan filayaa inuu halkan casharo wanaagsan ugu jiraan bilmatalan dhinaca caafimaadka oo kale marka laga hadlayo cuntooyin dabiici ah oo natural oo aan kiimiki waxba lagu darin ayay ku tusaysaa Xafso sida ugu wanaagsan aad u karsan karto isla markaasina aad uga faa'iideysan karto anigu dadka cabitaanka jecel baan ka mid ahay marka cabitaano fara badan oo noocyo kala gedisan leh ayaan dabcan ka helay intii ay magaalada Minneapolis joogtana qaarkood ay samaysay markastoo aan u baahdana aan mataqaana ay sheegaan YouTube-keeda ka daawada haddaad u baahan tihiin inaad la xiriirtaan ama aad daawataan barnaamijyadeeda waxaad ka daawan kartaan YouTube-keeda ah Cooking with Xafsa waan filayo inaad wax fara badan ka faa'iidi doontaan waxaan rajaynayaa dhammaantayo annagoo caafimaad qabna cunto caafimaad leh iyo cabitaan wanaagsan iyo weliba isqurxinta gabdhaha jecelna inay ka faa'iideysan doonaan sidoo kale isqurxinta way soo bandhigtaa Cooking with Xafsa had iyo goor had iyo jeer meel kasta iyo mar walba